waxayna soo qaabilay bishii barakaysnayd ee khayrka badnayd ilaahay uu barakeeyey shahru ramadaan qofka dadka ahlul iimaanka ah waxay ku qaabilayaan farxad ma ka naxayaan waayo wuxuu og yahay waxa ilaahay uu dhex dhigay soonkuna annaga kaliya nala kuma waajibin ummadihii inaga horreeyayba waa lagu waajibiyey laakiin bilaha iyo waqtiga iyo kayfiyada kala duwanaa sanadii labaad ee hijriyada ayaa ilaahay waajibiyey bisha ramadaan soonkeeda waajib kama dambaysa waxaa lagu waajibiyey qof kastoo qaangaar ah oo muslim ah inuu bisha ramadaan la yimaado soonkeeda uunan ka tegin hadduu yahay qof negi oo aan musaafir ahayn oo caafimaad qaba waa inuu soomaa maalin kaste oo maalmaheeda hadduu yahay qof jiran dib danbuu ka soo qallaynaya hadduu yahay qof musaafir ah oo safar ku jira oo caafimaad qaba waxaa la dooransiiyey inuu iska afuro maadaama musaafir uu yahay iyo hadduusan dhibahayn inuu soomo labadaba waxa weeyaan khiyaar buu leeyahay ilaahay wuxuu waajibiyey bisha bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda maalinna inaan laga tegin ee kulligeed la soomo waana la xadiday bidaayada bisha ilaa nihaayadeeda sida lagu garanayo sida lagu raadinayo iyo sida lagu xaqiijinayo nabigu wuxuu yidhi calayhi الصalaaةu wasalaam laa tasuumuu xataa tarawu اlhilaal ilaa bisha aad aragtaan ramadaan ha soominina walaa tufطiruu xataa taraw ilaa aad aragtaan ha afurinina inay dhammaatay oo tii kale ay dhalatay haddii la waayo oo arag la waayo soddonkii shacbaan ayaa la buuxinaya waxaa la xadiday masna soonka la cunidda la cunahayo wakhtiga la joojinayo ay ka bilaabanayso inta saacadood iyo inta wakhtigaasi uu yahay waa qoraxdu markay dhacdo ka hor lama afuri karo iyo aadaanka subxigu markuu dhasho wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr uma atimu الصiyaama ilى اleyl iska cuno iska caba ilaa waagu iftiimo oo waagu u baryo markaasna soonkii taam yeela ilaa habeenkii la gaaro qoraxdii ay dhacdo waxaa lagu caddeeyo intaas lagu caddeeyey inaan la isku khilaafin goormee wakhtigiisu ka bilaabanayaa soonka cunnada la joojinayaa iyo goormee la afurahayaa waa la caddi markaasaa ilaahay wuxuu yidhi faman shahida minkum الshahra falyasum qofkii xaadira oo goobjoog ka noqdo ilaahay uu gaarsiiyo bishaas ha soomo shardi ma ahan adigu inaa aragtid ama hebelkan kale u arko dad muslimiina aan kadib iyo been iyo fuxsh iyo xumaan midna lagu aqoon inay arkaan ka markhaati kacaan intaasaa muhim ah anigu ma arag ma ahan macnaheedu in la arkaa muhim ah haddii bishii ramadaan aragtideedii xaqiiqo ay kuu noqoto oo la xaqiijiyo ilaahay wuxuu leeyahay qofkii goobjoog noqdaay oo xaadiraay ha soomo wa axadu arkaani اlislaam shanta tiiru islaam mid ka mid ah inoo soo gelahay ilaahay raxmaddiisana fi lcumri maratan fi sanati maratan waaxida sanadii hal mar oo keli ah ayaana la kaga dhigay na la kagama dhigin bil kaste maalin ka mida lagama dhigin lixdii bilood oo kasta mar lagama dhigin 12 bilood bay hal bil ka tahay waxaana ilaahay raxmaddiisa iyo fadligiisa ah addoonkan daciifka ah oo gacantiisu ay dambaabayso oo lugihiisu ay dambaabayaan oo carabkiisu habeen iyo maalin dembi gurubsanayo oo calooshiisa ay balaayo cunayso dambaabayso inaan baabka raxmadda laga xirin ee irdaha raxmadda loo ballaqo ee la siiyo fursad qaali ah oo ay jirto
inuu nafaxaadka iyo khayrka ka faa'iideysto waxaa lagugu soo dhaweynayaa marka martiqaad ilaahay uu nasiiyay wi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay soonkiisa iyo salaadiisa iyo laylatul qadrigiisa in mid kastoo ka mid ah uu yahay غفر له ما تقدم من ذنبه wixii hormaray baa loo dhaafay dambigiisa wixii ka hormaray baa loo dhaafay marka habeenkii waa dambi dhaaf maalinkii waa dambi dhaaf habeenkii waa habeenadii la sii kala duwo dambi dhaaf uu yahay waa bishii ilaahay u doortay quraanku inuu soo dago oo ilaahay quraankiisa uu soo dajiyay subhanahu wa ta'ala wa bil hasanaadkeeda la laalaabo la laabitaan aan tirsi go'an lahayn نبي وحي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف عملك ابن آدم كوالله الله با هل كي حسنة الضبال طوان بالله قد نجد طوان كينا إلى تضواب بقل قارب اللو قارسينيا قارنا طوان بالله قد فرحي قال الله عز وجل إلا الصوم صوم كي سيقوني يا إلهي أدورتي فإنه لي وأنا أجزي به أنا له أنا أمال قدية أمال كي سبحنا يدع شهوته وطعامه من أجل حي إلى أدوم كان شهوديسي يعنديسي يعبتان كيسي وكتجي محو وكتجي إلهي وحو أغمر قاتك عيا من أجلي أنا قدرت يبو أغتك وحو أودا هذه بني آدم وكبقها يا ميل لابا انتو قالوه وحو الربا إنو عبا وحو الربا رعنو لكن ما دام هو أساقو قريقيسا جوغا oo cunada nooca ugu fiican halka ay yaalo oo wax ka celinaya aan la arag ilaahay dartiisu isaga daayay soonkaasi gooniyaha acmaashi looga dhex saaray ilaahay baana sheegtay amaalkiisa inuu guday amaal bixinta ilaahay uu ku amaal bixinayana cadadka ay tahay wax anagu aan koobi karna ma ah hadii xasanadii kale ilaa 700 la laalaabahayo حاد ملايين صونك حسنات كيس إلهي وقاطي أو إلهي بلن قاعد إنه بحناي وحسنات أدفر بدر كل جود حسنات كأسقو إلهي وبحنايو أيام مثلا صونك يسجوني الله ضبط هذه عشقالتها هاي كم بني وشقيسي أما الدولة وشقيسي أولو يراهدو قفكي سود داله بيش أقدم بيسا سنتك dadaalkiisana si laaba mushaarka waxa la siinayaa 10 laab $500 baa qaadataa bishii ugu dambeysay oo sanadka ayaa waxa ogtahay hadaad didaashid in 10 jeer lagu laabayo qof kasta intuu waxyaalaha kale oo dhan iska daayo ayuu leeylan wa nahaaran wuxuu ka shaqeynayaa inuu sanadkaas gabagabadiisa lacagtaas aan laga nuqsaamin oo wax kasta oo dhaliil ah oo ku imaan kara shaqadaas uu hayo uu ka ilaaliyo hadii la yiraahdo laakiin ka waran masnaa ilaa 700 oo laalaaba loo laalaabaya mushaarkiisa sanadkan kaliya marka hadaad didaashid oo intii aad qaadanaysa 700 oo jeer lagu laalaabo faqriba waa xorta shaqada waa iskaga tagi daaraad ka dhisan waa ka xaroonaysaaba in lacag waxay noqonaysaa aad iyo aad u fara badan hadii masna uu yiraahdo taasi waa wasaaradii aad u shaqeynaysadee boqorkii uu yiraahdo dad gooniyaha anigu dooranaya 700 iyo la laabaysaan iska daaya si gooniya waxaan rabaa anigu inaan bixiyo hanti ka bedelan 700 oo jeer oo la laalaabahayo oo dad gooniya la isoo xulo insaanku wuxuu fahmi karaa duruuftiisa iyo waqtigiisa oo wuxuu ku aadsanayaa in bishaasi ay uga bedelnaato sanadka ugu dambaysa uu soo shaqeynaya bilaha kale ay uga bedelnaato hadii deyn lagu leeyahay wuxuu leeyahay maalinkaas aan didaalaya deynta bixin doona hadii guri qabyo ka yahay wuxuu leeyahay markii aan gaaro bishaas lacag badan baa helayaa guriga dhisi qabyada ka saari doona qaraabada tiraahda wax isii markii la gaaro waqtiga isoo wax kasta wuxuu ku ballaminayaa madasha iyada ah intuu didaalo inuu ka gaaro maqaam
inta loo yeero la yiraahdo adiga 10 jeer lagu laalaabi mahaye 700 oo jeer baa lagu laalaabaya ama la sii gudbiyo la yiraahdo adiga arintaadu waa naga weyn tahayba boqorkii baa wuxuu yiri wadanka qof iyo dadka noocaas ah la isoo gudbiyo magacaagi halkaas lagu dar maxaad u malaynaysaa taasi waa adduunyada laakiin rabbul caalamiin oo kaydkiisa iyo khasaa'intiisu ay buuxdo haddii uu ka waran camalkii 700 uu ku bixinayay soonkii ilaahay gooni uga saartay oo uu yiri aniga maamuusaya si gooni ah maxay kugu bixinaysaa ina bishan ay kaaga bedelnaato bilaha kale oo dhan nabigu wuxuu yiri man qaama ramadaan iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi qofkii istaaga ramadaan wa taraawiixdi man saama ramadaan qofkii sooma maalinkiisa man qaama laylata alqadri iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi marka waxa lagu dareensiinayaa habeenba habeenada uu ka sii dambeeyo sidoo u dambeeyo u socdo laylatul qadrigi waxa la dhigay 10 ka dambe didaalkaagu waa sii labalaamaya marka waxa ku tala gashaa sanadkan kii hore inuu san kuula mid noqon xagga quraan akhriska laalaab xagga salaadaha badso xagga istighfaarta iyo toobadkeenka xagga sadaqada aad bixinaysid xagga cafiska aad sameynaysid ha kaaga bedelnaado ramadaankii hore dad rabay inay ramadaankan soomaan baa maalmo dhow dhintay shala subax ayaa nin la ii soo sheegay aan aad u aqaanay khayrkana ka shaqayn jiray masjid aan dhisahayay oo dhismihiisu uu socday ayuu ila soo hadlay markaasuu wuxuu yiri masaajidkaas labada dabaq ah markii la gaaro mutureelka dhammaantiis ana bixinayo ii soo sheeg wali lama gaarin shala subax uu dhintay isagoo go'aan ka qaatay oo raba inuu bixiyo ayuu shala subax dhintay adigii oo aan iska jirin ayay si kadiisa kuugu imaan rag baa dabaqaya dhisay aad u qurux badan hayagoo furitaankoodii u diyaar garoobahaya iyo wixii lagu gogli lahaa sidii lagu qurxin lahaa dhismihii uu dhamaaday koob shaaha aan ka cabin baa laga qabtay oo ay ka tageen badanaa nin qorshe u degsanaa oo qorshihiisu u kala duwanaa oo ay geeridu ku soo xaadirtay ama koronaha ugu soo dhuunto ama magac kale ha ugu yimaado ama kansar ha lagu magacaabo ama xabad baa ku dhacday ama qarax si kastaba ha ahaato asbaabaha lagu dhimanayaa way kala duwan yihiin dhimashadu waa waahid qul yatawafaakum malakul maut alladhi wukila bikum qof dhaafaya ma jiro malagii la idin xil saaray baa dhammaan idin oofsanay ilaahay uu wakiishay subxaanahu wa ta'ala xaaladdu maadaama sidaas ay tahay maanta waxa kula gudboon go'aanna gaartid qaraabadii aad goysay xariiri oo raadi saaxiibadii wax idin dhex mareen cafiska dalab iskana cafi tanaazul aan caadi ahayn oo aan lagugu aqoon la imow deeqsinimo aan lagugu aqoon la imow didaal aan horay lagugu aqoon la imow ilaahay uga run sheeg camalkan mubaaraka ah oo weyninka badan si ilaahay abwaabta khayrka dhan inoogu furo اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الغانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين